بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Walaalayaal, sida aad la socotaan waxa soo laba kacleeyay xanuunkii halista ah ee coronavirus ama COVID-19. Maalmihii la soo dhaafay waxa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa badanna waa uu soo ritay. sidaa darteed fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, guud iyo dibad. waxaan idinka codsanayaa in aad taxaddar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakameynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeena iyo guud ahaan dadkeena uga badbaadino xanuunkan. fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan, sida faradhaqa, kala fogaanshaha, xirashada af xirka ama maskiga, in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojinno isu imaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii la mid ah. waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada oo ay ku aadan khatarta cudurkan koronaha. dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalidda xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah. dhammaanteen aan dadaalno. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ummaddeena noo badbaadiyo. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi.